بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maanta sharaf noo weyn ah inaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan ka sii sagootino garoonka Janaal Maxamed Abshir ee magaalada Garowe oo muddo 3 cisho ah ku sugnaa magaalada soo qayb galay xafladii caleema saarka natiijadii ka dhalatay doorashadii bisha 8 ka dhacday Puntland. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay muddadii yareyd ee uu joogay inuu fursad u helay in uu madaxdii dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo madaxdii hore ee dalka iyo dad fara badan oo isugu yimid caleema saarka inay fursad u noqoto inay halka isku arkaan oo fursad badan oo hore la isugu helin halka lagu wada helay. waxaan aad ugu mahadcelinayaa muddada uu joogay sida wanaagsan ee arrimaha qaranka iyo dalka u yaalay uu u agaasimay. waxaan rajaynaynaa haddii la idmo safarkan inuu ahaa safar guul ah. waxaan rajaynaynaa maalmo dambe iyo marar dambe inaan soo noqon doono si halka looga sii ambaqaado dib u dhiska dalka iyo horumarinta nidaamka federaalka iyo dawladnimada. waan ugu mahadcelinayaa muddadii uu joogay shaqooyinkii faraha badnaa uu qabtay. waan rajaynaynaa insha Allah maalmo dambe oo soo dhow inuu dib noogu soo noqon doono si uu halka uga sii wado howlihiisa madaxweynaha iyo wafdigiisa oo xildhibaano iyo wasiiro iyo senataro iyo dad kale oo runtii muhiim u ah laamaha dawladda ay ka soo qayb galeen. sharaf gaar ah noo tahay waan inaga mahadcelinaynaa madaxweynaha. bismillaahi raxmaani raxiim. madaxweyne adiga iyo bulshooyinka Garowe iyo Puntland runtii aad baan idinkaga mahadcelinaynaa aniga iyo wafdigayga sida wanaagsan oo sharafta badan oo waaltinimada leh ee Soomaalnimada leh aad noo soo dhaweyseen haddana aad noo soo weynaysaan. runtii waxay ahayd farxad weyn mar walba aan imaado Garowe waxaan la kulmaa shacab aad iyo aad u fara badan oo banaanka taagan oo saacado badan taagan oo hadee Garowe waxay ka tirsantahay magaalooyinka ugu waaweyn oo ugu population-ka badan oo laga yaabo inay 8 saacadood 9 saacadood banaanka loo taagnaadaan sugaan. aad iyo aad baan runtii bulshooyintaas aan uga mahadcelinayaa inay sida sharafta leh oo waaltinimada leh noo soo dhaweeyeen iyagoo laga yaabo inay hawlo badan oo muhiim ah ka soo tageen. waxaan iloobi karna ma aha waa jeclaan lahayn inaan u istaagno oo aan salaamno laakiin duruufta nooma masaamixin. insha Allah waqtiga soo socda armaan doonaa yeeli doonaa maxaa yeelay waxa lagu yaqaanaa markaan arko shacab weyne banaanka taagan inaan jalboodo oo aan soo dago oo aan dhex qaado oo aan salaamo laakiin mushkilad ma laha insha Allah waqti kale noo ahaanaysa. runtii sida sheegtay waxaan uga faa'iideysanay caleema saarkii walaalkeen aan ku galbinaynay. waxaan uga faa'iideysanay in aan howlo qaranku leeyahay aan ku qabanno oo dawlad goboleedyadii isugu keen dambeysay shirkii Baydhabo oo xaqiiqatan aan ku ballanay shirka loogu xiga inaan ku qaban doono meesha la yiraahdo Garowe inaan isku aragnay halkan oo aan haddana ballan ku dhiganay inaan isku aragno bisha soo socota Maarso dhexaadkeeda insha Allah hadii la yiraahdo oo aan howlihii runtii naga hakaday aan dib u soo cusboonaysiino oo annagoo dalka iyo dadka u shaqeynayna halkaasi wax alla wixii qabya ahaa oo ummadda danta u ahaa aan ku dhamaystirno hadii la yiraahdo. madaxweynaha waa uga mahadcelinayaa runtii maxaan ku raahdaa qaybta muhiimka uu ka qaatay sidii loo wada hadli lahaa maxaa yeelay waxaa loo shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed looga saar lahaa wax alla wixii mugdi ah. aad iyo aad runtii uga mahadcelinayaa doorku ka qaatay shariifka ah. insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo halkan aan imaanaynaa inta aan ku gaarno go'aan iyo wax la taaban karana haddii qaadato usbuuc iyo 2 usbuuc halkaan aan joogi doonaa insha Allah. waana mahadsantahay madaxweyne.